محمد يا رسول الله صلى محمد يا رسول الله صلى عليك وسلم المولى محمد. munaasabada xuska dhalashada nabiyullaahi maxamed naxariis iyo nabadgelyo karkiisa ahaatee sanadka 1447 ee taariikhda hijriyada ayaa lagu qabtay masjidka Sheekh Cabdisalaam ee magaalada Jigjiga. munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah culimada diinka ugu waaweyn ee deegaanka Soomaalida oo uu ka mid yahay imaamka iyo mudarriska masjidka Sheekh Cabdisalaam iyo qaar ka mid ah guddiga masaajidkan. munaasabadan oo ahayd mid hordhac u ah dhalashada xuska nabiyullaahi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo si guud looga xusi doono geyiga Soomaaliyeed iyo dhammaan caalamkaba. maalinta berri ah ayaa waxa uu masjidku caawa soo qaban qaabiyay munaasabad hordhaca. intii ay munaasabadu socotay ayaa waxaa laga sheekeeyay taariikhda nabiyullaahi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee iyo wanaagiisu banaha sallallahu alayhi wasallam. ugu horreynna waxaa hadalka iska daba qaatay Sheekh Maxamed Cambe iyo Sheekh Mukhtaar oo ka mid ah iyagu mas'uuliyiinta iyo guddiga masjidka Sheekh Cabdisalaam ee magaalada Jigjiga. caawa waxaynu fadhinaa ixtifaalkii iyo soo dhoweyntii dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam, nicmada ugu weyn ee la ina siiyey. marka waxay noqonaysaa iimaankii iyo islaamkii rasuulkii oo ku daadan sala allahu calayhi wasalam habeenku dhashay weeyaan. inaan haddaba ka qisayno, inaan siiradiisii ka waranno, jacaylkiisa inaan ka waranno, waxay ka mid tahay waxyaalaha inoo kordhinaya iimaanka yay inoo kordhinaysaa. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ambiyadii iyo ummadihii hore qisastooda yaa lagu yidhi wakullan naqusu calayka min anbaa'i rusuli maa nuhabbitu bihi fu-aadak. rasuulkii baa laleeyahay waxaanu kaaga qisaynaynaa ambiyadii iyo rusushii wararkoodii baan kaaga qisaynaynaa baa lagu leehay, wax aanu ku xoojinayno qalbigaaga iyo fu-aadkaaga. haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam lagu leeyahay rusushii hore qisastoodii iyo wararkoodii baanu qalbigaaga ku xoojinaynaa, innagana rasuulka oo laynooga qiseeyo iimaankeennaay xoojinaysaa, qalbigeenna adkaynaysaa. rasuulku haddaba calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisu waxay ahayd raxmad bay ahayd. ilaahay caza wajalla wuxuu leeyahy wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, maanaan kuu dirin ilaa naxariis caalamka aa u tahay mooye. ma aha hadda waxa uu naxariis u yahay inta mu'miniintaa ma aha, bal ee insiga ma aha, insi iyo jin oo thaqalayna ma aha, inta noolaha ee xayawaanka ah ma aha. caalamku waxaa weeye maasi wallaahi tacaala, ilaahay wixii ka soo hadhay oo dhan yaa caalam la yidhaahdaa. intaan naxariis iyo raxmad aad u tahay baan kuu diray buu ilaahay subxaanahu wa tacaala leh. innagana wuxuu ilaahayna leeyahay qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun. waxaad tidhaahdaa nabiyow, fadliga ilaahay iyo naxariista ilaahay ha ku farxaan. amarkan hore qul rasuulku ku dhacayaa waa amar mufrad ah oo rasuulka lagula khidaabayo. waxaad ku tidhaahdaa fadliga ilaahay oo iimaanka iyo islaamka ah, naxariistiisa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaama, fabidaalika falyafraxu, kaa ha ku farxaan dheh. amarka haddaba marka yuu ku dhacayaa ilaamul amarka wadata falyafraxuu, dadka laleeyahay ha ku farxaan waa inaga, sidaa ku dheh ha ku farxaan baa leeyi. waxaynu isugu nimid waxaa weeye farxad aynu ku faraxsannahay dhalashadii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam. waxaa ka mid ah min khasaa'isihi sala allahu calayhi wasalam in ummadda oo dhan isaga loo diray, cid aan isaga ahaynna arrintaa muna helin, oy risaaladiisu ahayd mid caamo ah. amaa ambiyada kale oo dhan ama rususha kale oo dhan risaaladoodu waxay ahayd mid khaasa ah. uu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiica, innii rasuulu llaahi ilaykum jamiica. waxaad ku tidhaa nebi maxamedow, dadow anigu rasuul laydiin soo diray baan ahay dhammaantii. amaa ambiyada kale
يبعث النبي إلى قومه نبي وحلو الدريجري تركي بقى لو دريجري ماشي مركا باهي بقى جريسي نبي محمد وقت يسي صوء باهي سنة وحيا هاي نبي محمد وقت يسي صوء أولانتي النبي مركا قولا الله دل وقولا كلام النبي بقوبة عنجي أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام أصدق ما دام رسالة سعامة هاي والمدقود هاي وما باهن رسول كلا وما باهن تاسوا من سادت الدولة النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه نبي وعابه النبي كالوجر قومك وبالعث إلى الناس كافة أنا قد أدتك وطنب الله يدري من النبي عليه الصلاة والسلام قدبك كلا وهو حوية تكفل الله إظهار الدين تكفل الله إظهار الدين إلهي سبحانه وتعالى وهو كفارة قاضي نبيك دينتي سنين موقته على الأديان ديمها كلو إنك كفر ديمها كلو أردن إنك كفر وذكتينه كتبتي كتاب كان فرقان كهري يسير التوراة إنجيلي تبديل التحريف واحد ربنا بالمسلمين يحرفون الكلمة عن مواضعه إلهي القرآن إنه الله طبعا أما نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ديمها كلو نبا دينتي سلقكم ويكغالب نقطي أو كأول بلط سنو الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين